halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xajka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. faalada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa laba qodob. xaaladda ama khilaafka wadani iyo kaah oo meel adag maraya waa qodobka koowaad. qodobka labaad oo ah sirtii uu fashiliyey ninka la yidhaha maxamed cabiibe la xiray oo ah in la dhaco ama ay boobaan doorashada dadna ay u samaysteen ee farsamo yaqaano ah iyo qalab. labadaa qodob baan ka hadlaya. aan bilaabay khilaafka kaah iyo wadani. waxaynu ogeyn bilowgiiba maalintii xafladda loo qabanayba sawirkii dee inoo soo baxayba ay ka muuqatay in xirsi aanu calankii labada kala rahaa qaadan, kuwa kalena ay ku wada jeeni qaaraayeen. sidoo kale waxaynu ka faaloonnay maalintaaba in isku milanka in la isku beeri karo, laakiin la isku beeridu ay noqonayso in mid lagu milmo oo mid ku milmo oo sidaa asuun la isku beeri karo, laakiin iyadoon midna mid ku milmin oo halkaa la kala joogo inaan la isku beeri karin. waxaan la kala iibsanayaana ay tahay been iyo khiyaamo oo dad iskhiyaamaynaya oo haddana xaflada dhiganaya uun arrintoodu ay tahay meel aanay gaari doonin, iska hor iman doonaan. taasaan maalintii horese sheegay waanay muuqataa. dhowaan bay ahayd markii xirsi isagoo bari tegey uu lahaa ma oramaanuna iyo maxay ka habaydin iman doonay haw tegina ee maxay xisbigeennu waa wadani, madaxweynuhuna dhisaynaana waa cabdiraxmaan, xisbiga lasoo saarayana waa wadani. sidee waa xisbi mucaarada maxay xisbi muxaafida oo madaxweynihiisi aynu dhisayno mid mucaarada oo ururi aynu u dhisi karnaa? arrintaas waxay ahayd dee mid uu bareeray oo uu ka hadlay public. jawaabtii isagana maanta labaad bay ka bixiyeen qolada dhinaca kale. maalintii hore jawaab buu ka bixiyey hadalkaa xirsi cabdiraxmaan ciro. waxaanu soo qoray waxaan ahay musharaxa wadani iyo kaah, iyadoo kaah sharciyan iyo caqliyan midna aanu yeelan karin musharax, oo urur maanta uu yahay xisbi markuu noqdo ee uu soo baxo dee ayuu musharax yeelan karaa. ninka maanta yidhaa oo maxay kaah baan musharax u ahayna waa nin sharcigiina ku ciyaaraya, caqligii dadkana ku ciyaaraya. waa nin ilmo aanu dhalan magac intuu bixiyey yidhaa aabbaan u ah ilmo aan dhalanba. maalintaa uu ka jawaabay cabdiraxmaan. waxaanan filayaa sidaan warka ku hayo in maxamuud xaashi yidhi dee ka jawaab arrinta xirsi oo uu ku bushkareeyey jawaabtiina inta ay noqotay. jawaabtii labaad baa maanta aan arkayay. haddana waxaa hadlayay xildhibaan mustafa khayreeye oo inta badan afka maxamuud xaashi ku hadla, oo dadka maxamuud xaashi uu samaystay ee aad magaranaysaa dee uu iska leeyahay ah. inankaasi burcu ka hadlayay, daalo hotel buu ka hadlayey. wuxuu sheegay deegaanadeena buu yidhi isagoo leh inaan magaranaysaa cod laga siin maxay wadani kaah laga siiyo maxay haddii alle kuu roon yahay xisbinimada, madaxnimadana cabdiraxmaan la doorto. waa inoo kow xisbi guddoomiye leh oo xisbi ah in la yidhaa codka labada cod ee ugu baahan yahay maanta labada doorasho ah midna ha la siiyo midna yaan la siin in la yidhaahdo waa inoo kow. waa taarikh uguba. waana khiyaamooyinkii aan sheegayo dee laisla gaadayo. xirsi khiyaamu wataa. wuu ogi cabdiraxmaan inaanu soo baxayn oonu madaxweyne noqonayn, laakiin xisbiga inuu la soo baxo magaciisa ku qoran oo 10 sannadood dambe isagu xisbi laysan le haysto oo hadhowna musharax isagu uu ka noqdo ama ciduu rabo uu ka dhigo. saasuu rabaa maxamuud xaashi laftiisu. dadka awaalan ee u waashay dee magaranaysaa kursiga ee sidii lagu heli laayay halkii cidka loo doolan lahaa aan garanayn ee u arka maanta in maxamuud xaashi habar jecel uu keenayo ayuu arkayoo isaguna maanta wuxuu doonayaa inuu xisbi ururka yar la soo baxo oo kuwan u soo saaraan.
عقل سيدا نوم مقتنع نينها برشا لو كان كرا أو نكرا أسرع عضية ما هو دي ما ديل كل يقف دي ولا ما قال كرا قبيل أرنتاس لابد أن نبع waxay ku fikirayaan sidii dadka aad dawaqsan ee talada ku xumaatay ay u soo saar laayeen in xisbi erana wuxuu isleeyahay labada nin kana lagu qaatayo ma garanaysaa cid ku keenayay kani waxba ku keeni maayo arrintaasna waa qarax dhawaan dhici doona oo sagaalka bisha loo ballamay saan filayo maxay in loo ballamay shirkii golaha dhexe lagu dooranayo musharaxiinta in arrintaasi uu qarxi doono khilaafkaasi nin waliba maanta uu ku fikraya ilaa maxamuud xaashi inuu golaha dhexe ee wadani nin waliba cidi ku yeesho oo hadhow la isku muquunin doono khilaafkaas iyo doorashada xilligeedii dhawaadina mashaakil weyn ay ku keeni karto xisbiga ama dee ma garanaysaa madaxda xisbiga sidaan xogta ku hayo xirsin wuxuu daraa dhalinyaro badan oo maxay hayb kula socota ayuu isaguna u diray deegaanada sidaan warka ku hayo deegaanadii kuwaas soo mareen deegaanadii habar jeclun baa maxamuudna qaar u diraya xirsin qaar u diraya waxaa la sheegay kale in burca gudaheeda ay isaga jawaabayaan islaynayaan dhalinyaradii labada dhinac oo labada nin ee kala maamulayaan ay isu soo faynayaan oo ma garanaysaa iska celi ay tahay arrintoodu arrintaasi waxaan u malaynayaa inay ma garanaysaa qarax weyn keeni doonto dhowaan haddii alla kuu roon yahay qaladkii markii hore dhacay wixii aan sheegnay digadii dambaskii la kala iibsanayay midhaheedina waa kaadee muuqday maalintaaba qaar badan baan la yaabaan moodayay inaanu xaasidayno ama aanu diidanahay waxa waaqiciga jira iyo jacaylkaaga iyo nacaybkaaga waa kala laba qof mar hadduu intaa kala garanayo wax uu cabiri karaa arrintaas waxaan filayaa inay tahay khiyaanadii dalkan laga galay ee lagu wada socday ee dowladaha shisheeye ay dadka shisheeye dalka la dagaalamaya la daaweystay inay haddii alla kuu roon yahay ilaahina waa arkay anana waa arkayno dee dadkuna waa arkaya intaas ay sababaysabaan anigu u malaynayaa oo ay halkaa khasaare weyn ka soo socdo ay doorashadaba ka hari karaan haddii doona sidii udub isqabsigoodaasi ama dee aan cidi wada weyngarayna cid laga weyngrayn doono oo qolana ka laga weyngarayana uu rafan doono oo dee ma garanaysa waxyeeladiisa dee uu waxyeeli karo arrintaas waa mid dadka aanu iftiiminayo haddii la yidhaha ka garqaadna labadaba aanu midna maanta ma yihi labadaba cadow baanu arkaa inay ku yihiin dalka somalilan oo ay labaduba ku xidhan yihiin shisheeye iyo ma garanaysaa dowlado kale oo ay dhibaatada maanta taagan somalilan lagu wado ay qayb ka yihiin laascaanood arrinteedii waxaa qaybta ugu weyn qaatay xirsi iyo ina khaliifo saaxiib ahaa in badan maantana boorame cidda qaadatay ee lagu ruxayaa waa maxamuud xaashi iyo inankaa xidhanay maxamed abiib oo aynu ogeyn maalintii uu dadka badan kiciyey inuu lahaa maxamuud baan salaamaya oo dadkii uu kiciyey beenta dee moodayey waxa kale ay la yaabeen oo yidhahdeen maxamuudna kula dad salaamaysa muuse biixi wadankii haystana aada caayso dee annaga haybna nooma kala sokeeyaan kanaaba dee labada la doorto mas-uulkii dalka ah marka maanta sababta maanta lagu soo bixi waayey ee maanta uu deere hurdii weyday iyo madaxweynuhu deegaankiisii marayaan waa taasoo la arkaya qaladkiisa oo cid la isticmaalayo oo dad ka kale isticmaalayaan oo mikrafoon laga hadlayo uu yahay dee inuu yahay dee ayaa muuqatay maxamuud waa ninka maanta maxamed abiib iyo barkhad bay isticmaalaya maxay waxyaabaha isagu uu ka xishoonayo oo dhan ee dalkan lagula dagaalamayo u isticmaalaya shalay baynu arkaynay labadiina na isdilay aynu shaashada ka daawanaynay inuu gardarrada aynu arkaynay inuu kii gardaraa sheegay in laga gardaran yahay haddana isagii 40 jir dagaalamay oo keyrkii la dagaalamay oo gardaran haddana uu ku sheegay birmageydo waxyaabaha indhaha ka tiraya ee hadallada ka keenaya waxa weeyaan qaladka ku jira iyo dhibta dalkan ku hayo waxaan aaminsanahay qolada xidhay dowladda somalilan ee maxamed abiib xidhay maxamed abiib waa dhagaxii la tuurayey gacantii tuuraysana waa maxamuud xaashe isaga laftiisa ayaa baaritaan u baahan baan leeyahay haddii labadaa nin ee maanta khilaafkooda aan iska sheekeeyey leeraa u garqaadna
وأنا من ضد شعرين هذانا وحال غير درين حرس على حاج حسن والله دولك يعني قدوم يكره وأن كل يسوق من يستيقظ halkaa waxaan ka baxayaa qodobka labaad ninka la yiraahdo Khaliif aamin ina abiib wuxuu inoo sheegay sidii klibkiisa la wareejinayo ku cadayd afkiisa ku hadlayay in doorashada soo socota xisbiga wadani iyo nimanka mucaaradka sheeganaya isbahaysanaya maxay Soomaaliland dagaalka kula jira inay ka shaqeynayaan ayagoo banaanka joogo mucaarad oo inta lahayn inay dawladda boobi karaan waxaana xogahan helaya sheegaya inay diyaarsadeen khubaro maafiya ah oo taqaano maxay IT-ga oo magaranaysa ku jira anaga garanayna oo maxay doorashada iyadoo la idin helay kuwa idinka nabarka badnayd ku bedelayna sida Maxamed Abiibow sheegay arrintaasi ma aha arrin fudud dawladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay lagu feejignaado oo loo sameeyo maxay wixii laga hortagayay meelaha ay ku qaranayaan dadka iyo qalabkaana waxa leeyahay laga war doono oo laga war hayo arrintaasi ma aha arrin fudud yaa la fududsan baan leeyahay nimankani dhan walba dadka way kala dagaalameen oo way noo muuqataa niman wax la haray ma aha Somalilandna in maanta weerar lagu yahay waxay noo sheegaya arrintii MAU-gina garan saameyn weyn ku yeelatay gobolka iyo adduunka oo dawladda waaweyn ay ku dagaalamayaan oo Masar iscadeysay oo Turkish cadeeyay oo Qatar iscadeysay waxaynu arkaynaa in farmaajo iyo Fahad oo ninkii waday ee mulkiilaha dawladda farmaajo ahaa ay kala tageen oo Fahadna uu soo wareegay dhinacan iyo hawiye oo maanta ama Xasan Sheekh ama nin kale hawiye ah uu doonayo inuu dhiso dagaalkii uu halka ka sii wado Fahadna waa ninkii wax weyn Somaliland yeelay ee dadku dhex beertay ee maanta dadku dhexleh ee saxaafadeennii gacanta ku dhagay arrimahaas oo dhammaan dawladda Soomaaliland waxa looga baahan yahay ka hortageedii iyo dadkii ka hortagay iska celin lahaa waxa ku soo beegan inay samaysato oo samaysato haddii doorasho noqonayso la khalkhalinayo oo dad loo soo kareystay iyo haddii noqonayso kuwa saxaafadeennii dhex galay lacagta u isticmaalaya hawlahaas oo dhan waxa looga baahan yahay inay ka hortagno way arkayaan maanta ayaga iyo adduunka kale ee beenta u sheegeen in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kelinka hore badinayo oo uu cid daanta dalkan maanta aanay jirin meeshii wali uu tagabana uu dadku rumanayso maxay dadku sida dadku rumanayaan oo maanta gabiil ugu dambeysay waxa soo dhanaydo inoo muuqdo guus inoo muuqato hadana waxa loo baahan yahay nimanka khaayimiinta ah ee wax kasta oo walba khaayimaya in laga feejignaado khaayinimadooda oo laga hortago maanta oo aan loo arag xisbi caadi oo la tartamaya nimankana waxa weeyaan ma aha xisbi caadi ah waa niman haddii alla ku runay sabab kasta oo ay wax ku kharbudi karaan isku dayayoon ilaahayna ka baqanayn waxna ummadda ka xishoonayn wax walba ka soo galaan marka waxaan leeyahay hal loo feejignaado oo dawladdu waliba dadkeeda ha hagto haday saxaafad noqonayso iyo haday ka hortag noqonayso iyo haday arrin walba noqonayso dagaalada ku soo beegan waa inay oo iska dhacmisa oo u feejiga badnaata dhinacan kale ninkii Xasan Sheekh Maxamuud ilham saariban Kenya waxa muuqatay inuu dadkiisii aanu maamulin oo 60% in ka badan ay Itoobiya maamusho waxaan arkaynaa xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed u dhashay madaxweyne inay si toos ah uga hor yimaadeen yiraahdeen kuwa nabadeeda ilaalinaya haddaan weynana al-shabaab baan qabsanaysa oo si toos ah u cadeeyay warkooda shacabku ayaa la arkay maxay koonfur galbeed oo iyaguna ka mudaharaaday arrinta Axmed Madow ma ogola Puntland ma ogola yani khasaaraha inta la gashay ee u bareeday garoon ka dhigsay lagu dagaalamo dawladdu ku dagaalamaan dalkoodii dawaa maanta u muuqata hawiye qoranayay oo maamuladii kale oo kuwa dadka ka baxay ee ka soo horjeeda hawiye markaa waxa fashiliyay baan oran karaa Xasan Sheekh oo badgaliyay dhinacan kale Masar lafteedu imika waxay u aragtaa ama sida muuqata ay inay badgaleen ku dhowdu oo niman waxba maamulin waxba gacanta ugu jirin oo maamuladiisiba ay ka soo horjeedaan maxay Masar oo Itoobiya la socdaan ayaa u muuqatay arkaya marka u dhowdina badgaleen bay arkayaan
oo meel nima waxba haysan oo aan meelba muxkumin cid xukumaaba aan jirin oo afkun ka hadlaya inay heshiis la galeen bay arkayaan oo qaldameen waxaana imika laga yaabaaba inay wada hadlaan sida imika muuqatay in maxayday madaxweynaha Masar iyo Prime Minister Ethiopia oo garanaysa aanay si fudud khasaare u gelin oo isugu dhaxriin halka Masar way arkaysaa arrimahaas waa qaar waxaan oran karaa khalkhalkii iyo miyugu madaxweynaheenu uu saxay bilowgii sanadkan dhiis ku dhaqaajiyay dawlado badan gobolkiina iyo adduunka qaybo ka mid ah waxaad moodaa inay magaranaysaa arrintan saameysay magaciisa Soomaaliland meel dheer ayuu gaaray heshiiskana mid labada dhinac ka go'an oo suuro galaya oo aan idin joojin karin cid kasta isku dayday joojisana ay ku khasaartay buu noqday marka waxaan leeyahay dadka afka ka hadlay wax ku soo haray afka ka hadlaan ay yihiin ay ka mid yihiin maxay Soomaaliya iyo dawladda xasan sheekh meel maamulin iyo hadii alla ku rooyo kuwa ka soo horjeeda Soomaaliland haddana itaalka u waayay Soomaalida kala waxaan leeyahay hadal bay hayaan in hadalka la idinku asqaysiin waxa kaliya imka u baahan inaan iska xoreyno oo saxaafadeena ay haystaan labada qolo ka dhaxaysa xisbiga mucaaradka magaranaysa ay afkooda ku hadlaan maxay fogaade daawada la yeeshay dawladda shisheeye iyo in qaybtan kale Fahad Yaasin maamulaya la maanta maamulo kuwaas ma loo baahan yahay dawladda inay fahanto iska xoreyno oo magaranaysa hadii iyaga aan talaabo laga qaadi karin loo dad samaysto cid loo samaysto kale oo iska celisa oo aan arrinta la fudaysan because beentii way ku celinayaan marka beentii garoonka kaligood la fadhiyaan cidina ka jawaab weydo dad badan oo magaranaysa wuxuu loo sheegay iyagu ayaa rumaysanaya beentii oo hadii lagu celiyo beentu run bay noqotaa laakiin waxaan leeyahay guus wax geen